السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاوض الكسر وهذا channel كنا لك شو. ما كسر دين تعالى شو تارت حصل انت هدي برقيد انت هدي الظهر انت هاي انت بقى حلقة انت هاي وعنو ونكتب هذا لنا جايز. وحنا نكعسنا channel كسبسكرايب ساعتين كم بلال كرفرتين. لكن ما يوقعوني بقى جايز معني كلمة رنيرة قطعت. رنيرة رنيرة يدز وين إسلامية قضية شيخ يا وده. مركا هرد إنك ساعة موضوع عن كحلنا وغير اللي هي. رهانتي وانجعل سلنا سهر مرنا بس لكن أرجع كاس ورن يركلي هو يقول رن يرمي سرنا تذكروا وين سودوا تذكروا وين سودوا وين نولا يعني نعاو واحد كهذا لك قاتل واحد كهذا لنا فعل كيلو يقول لك عاي لابد إن نقوم رجع عشاء يستري كبصدي درينا لابد أسكتر درينا كبصدي ها وين درينا وانا كبصدي صح مقدر قالوا واحد كذا عاي شلته أو ما أنت أنا شلته نوع نقنص هاي bulshada naga sii dambaysa daraad soo noqonaysa sax dilka laba nin oo kamid ah ragii kubsaday dilay oo aad iyo ugu faraxsan runtii la garab taagan dawladda inay yani gacan ku dhigliyaal ficil xusameeyaan labadaba ay ahaayeen in la dilo wax aad iyo qurux badan ahay kala kahan soo darka هرت والله أرن ونكسب بانو أركا إن محيط رجاس للدلو هذا للدين لها وحفظان لها إنها بلا مركز تلقوا بصدق مركز لقوا بصدقنا للدلو وحصنوا حين قال هذا رانتي وح نسيج وقتها عم بشكت هذا المركز تا لكن إم قف كستا عم بنين كستابه وبقيا وحارنا يعني فاق الوجود مركز دب وسيقرنا يا هذه أدنى نقول حسن هاي إن مكان للدلو كحالنا للدلو إن شاء الله ينرجعنا لك كل كان قوي كان كاجو رئيس هذا الكفر صح بس لك حاجة شو جعلي سأمو خطأ قف يروق عن جارنا هم الميل عرورة وقولوا عن قنجار كجارين إن الدلو وهذا لك صدا فعل حان هرت والله وعرن غير ذي سله كل برشدو إن بدنا ويلم رجوتي إن بدنا شكله ويفلان قيسي ووضع قرفيسي لكن ما تعطنا وهبين فرحات وأنا هبين كي رجي مسكين تاير عم بينن تاير إن قنجار كان اللي بيتون شركة وإحنا كله يمكن سوبر بارسي كبصدق ولي بندلك وبطريق المهاير عرضها يعني دمعين يصدحني نووين كل يقفور لين يسكو تجان هرت رنانت وشكاء وحنون بدن horta aad waan ugu faraxsan runtii kulli eraygan waxaan u soo celin aad ugu faraxsanay diinteena suuban waxay sheegaysaa qofkii qof dilay in loo dilo qortiin loo dilo gacanta hadii gacan goyso in gacanta loo gooyo sax oo wax diinteena islaamka dhigayso weeyaan ka ficil ahaana waxa ay ku cusub weeyaan dhaqanka Soomaalida yani ilmo carruur inta la dilo hadana la kubsado hadana la dilay runtii waxaan aad ugu codsanaynaa in cid kasto yani maxkamadda arrinka waday iyo sidoo kale cid gacanta ka haysa kama mulahan ninka haray isaguna kamid ragii isagana aqsaas lagu fuliyo because maanta wax dareemaya dadka qaar ba si kale ugu turjumaya oranaya nimankii inaan tirtira wala kala jeclaysto Soomaalida waxa aad isaga badan dadka maaragtay wax Soomaalida waxa aad isaga badan xagga qabyaaladda iyo dadka fiirsiga badan laga yaabo in wax ka soo saaraan beeladan inantii saxiyaaniin ragga ogaan bay ugu farxsan yihiin laakiin ka cabdirsaaq ahaan anigu waxaan arkaa maanta ragga in dib loo dhigo oo ninka ragga yar ninka in dib loo dhigo aniga waxay la muuqanaysaa ruuxaantii tariiqiga markaan xadeeyo ka cabdirsaaq waxaan caawa ka aaminsanahay in yaanihi kulli arrin qabiilin meesha uu ku jiro ما عارف قبيلين كتير وار إسرائيل لا رجع مركزية سبب تلو جرّه تاجن فلانتي وحنا أوران لها إن نكاس عن ببري عن بساط دم يلا كل جذب سنتي ها نكاس إن هرت الرج مركب فل وذا أرن وذا فل يدي إن كله بنات بيلا فرح فرح انت والله حاجة فرح إيرلندي si kastaba ha noqoto kulli aabaheedna uu hadlay oo isagoo hadlay oo dilka ku faraxsan yani in inanteeda ragii inantiisa aan raahdo ragii arrinka ku si in loo dilo bal isagana muuqaalkiisa in yar balsoo arkay yarha bismillahir rahmaanir rahiim maanta saaka 2 saac oo ay tahay Febraayo 11 waxa la qisaasay laba nin oo dambiilayaashii ahaa oo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige baa la qisaasay maanta aad iyo aad baan أنا قصاصتي وأنا كفر حسنة. نكفي سدحات ما دام سدح لنا حكومنا عيال دول كلمات اللي هو ذفرية محاد دبور دقي نكفي سدحات. نكفي سدحات وهاد دبور دقي طبعا عيش هاد دبور لور دقي وأنا دنبيلوها عد سباق شري حق مارتي ضدك يو أنك وأنا طبعا أنا الله بينا إياه طبعا كعشرة.
codsiga waxaa wada dhiibay aniga iyo dad oo iyaga ka tirsan baa wada dhiibnay in la hubiyo ninkaas nimankii caasho dilay waa wada aqaanay daris baanu ahayn waanu wada hadalnay xataa waa iscafinay cafis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha aakhiro unbaa war jiraa baan ku yiri tiirkaana la geeyey waana la dilay goobjoog baan ahaa xataa markay dhinteen dhuunta iyo gacanta waa ka taabtay saasta annagaa fushanay dowladdu waxay tiri fushadaa la yiri dareenkaygu aad iyo aad buu faahan yahay soomaali weynna waa u mahadinhayaa dadkii dembigaas galay caasho Ilyas aadan ka galay waa la toogtay waad aragtay ma filaya muuqaalka odagu aad iyo aad u faraxsan yahay runtii Ilyas anaguna aad iyo aad baan kula faraxsan runtii arrinkan la keenay muxuu ku noqon karaa yani baal madow meel ka gali karin ka dhaqanka Soomaalida oo kala ahaan meel oo dhan baal madow ka kala wallahi guud ahaan hablaha Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ku nool yihiin waxa uu tahay maalin madow amba waxa uu noqonaysaa waxaan ku leeyahay waxa uu galisaa buugga taariikhda yani maalinta ugu xun ee ugu foosh xun leh way ilmo yar oo carruur ah waxba kala garanaynin bay ragga waaweyn inta la leeg isku soo qaadiyeen hadda xitaa carruur yar u tagtay laanta waxba xaskaan laakiin ragga waaweyn inta la yani waxaan u qaadan laayba anigu aan sheekadan ba xatalan aanu haysto mana wax iska beenaba ha wallahi waan u qaadan laay wallahi laakiin haddana sheekadu way dhacday aad iyo aadna runaantii waan uga wada xunahay dhamaantay inta muslim sheeganaysa islaamka oo dhan runtii meel murugana oo tahay aad kulay tarankayga aan ku qabno ka caashahan iyo caawa jecel isla kala wadaagno mowduuca dheereen meeno sababtana dheereen waxay tahay wax laga hadlay wax murugana ah marka isaga sharab bilaay karim waxaan ka codsanahay ka codsa Cabdirasaaq Xalan ka codsanaya dawladda iyo maamulka iyo cidda gacanta ku haysa in isagana yaani ka dambeeyno waxbaan ka dambeeyno la eegan baa wax laga eegto maaha waa nin horta runtii fal xun u bareeray yaani waa bal inantiisoo kale mu ka soo qaadi kar waay xitaa qofkaas amba dadkaas ilmuhu iyo kale ma ka soo qaadi kar waay way dhali karayaan laga yaabaa in qaar inta ka waaweyn habla inta ka waaweyn waa nin kasto inaan xumeeyana walaash baa laga jarayaa amba waxaan ku leeyahay waxaad iskaga walaash amba inantaada kulli qof adiga kugu qaaliyo dumar ah ayaa laga jarayaa markastana waxa qurux badan dumarka leeyahay adilaalisiin ha inaad yani dumarka markasta deha way idinka mas'uulka ah aad iyo aad waati aad baxaawada ilaahay ka abuuray fudhiisa marka dad ilaahay isku lafaqoska oo walaasha inaad aragtay wacad kasta kuwa marba inaad wanaag ugu qool wallahi ma wanaagsan runtii adigoo ficil wanaagsan xitaa qofka dumar aad ku dhaqmi kartaan oo heli kari xitaa inaad guursato yana hadan ficil xun yani ma wanaagsan taasuna iimaan daran oo kale iyo qofan diintiisu yani aan dhameystirnayn aanay waxaan ku leeyahay amba iimaankiisu wax la iimaanku wuxuu kamid yahay tiirka diinta markaas iimaankiisa dhameystirnayn qofkaas waliba qofkaas carteerta waxa la alimaan nusradin yani iimaanku wuxuu kamid yahay diinta markaas qofku weyn inta lag waliba saddexna rag waa is qaban jireen be waliba isku raacay yani ma lagu tilmaami karin anu si xanatan weego يعني ملا رجل جذب هري وترسنين مش أبغى سامع هذا والله كلي هرت ملا وقت كنا يسكتشري أو حق على نقرأ ككتشري رجعنا ملا ورق ده ملا حافظ ده مركو لبس يستين فعل اسمه واحد عكريوي وصوت المها ير عرضها صدحني وكر يقفور لا يسكورها عين عقل قل ما هند ولا حسابتهم ولين الدلان إن الدلان كو حساب صدق صار تعاو قروين فرت حكم صدقني لكن الدلان ما هند فرت تعاو قروين جو حسين لا الله نحرسته كل إلهي عقابته هو بيريو كل نفط شيء أمر ما يوحنا سن كور لكن هذا لو قصص وكمل بيت أديات رانتي إن شاء الله بدي لك waxaan sidoo kale idin wadaagi doonaa hadii ilaahay ka dhigo marka isagana sharciga la mariyo ninkan kala haray isagana insha Allah la wadaagi doonaa hadii ilaahay ka dhigo kulli markii saalka waxaan u taagnay information soo qornay la wadaagno ka dareen ahaan idinku waxaan jeclaysanahay xaq hoose inaad waxa dareenka qabteen aad iyo aad kala kahana kulli ano iyada afkeeda ku hadlaaya maybe wax dhici karta ilaa maanta ilaa shan ilaa tarad la bulsho badan ku soo korodhay iyagana waxa uu sheegayaa yani informationada halkaan ku bixino kulli inta lagu cusub muuqaalada aan hore soo daawanin inta badan siyaasadda kama sheekayno iyo qabyaalada xoosaasa waxyaabo dhexdhexaadan ka hadla soo dhawaada kulli farxad baad nagala kulmi doontaan hadii ilaahay ka dhigo idinku qosliyo wad noqon doontaan inkasta caawa waxaan ku leeyahay habeen sidii murugadiisa iska wata ay noo tahay anaga ka dumar ahaan waliba marka hablaha Soomaaliyeed wallahi hala ilaaliyo kii diray habla geera dhigi kara maxay gulufka iyo dagaalkana geli kara
يا حبيبي جيلي يقول في داعي وحن كنت قاعد في جناي هذا إذنك يقصد دوشان إذنك يقصد دوشان ولا واحد هذا والله واحد وقت هذا وين سكست وأنا قطع مرقد وأنا تري منها لما فهم لك عشرة إن شاء الله بالله كريم أنا قلت دعانا وقدر إنه ده وحكي لي مقام كريم ها ولا إلهي بدل خير قبا هيد السيا أم بقف إذا اللو السيا لهي دحدينها كانوا أديات شدوا كلا حكومة يو وحنو إذا أمانة ونهم برينا إن كستيت هاي كل هراء مقال دل كبسي أو كدعاء هراء مقال أو الصومالي كدعاء hore uma maqal uu igu cusbiyay imka haday qaar hore jireen aniga kan uu igu cusbiyay imka wana uga hambalyeynaa dawladda Soomaaliya aad iyo aad oo qofkii yaani wax fursad loo dilay qofka fursad laakiin kan wax isku la faaqan taqaan dilkii iyo wax isku la faaqan iyo kubsiga waa sax raadiyada uu umurka badan way raantii sidoo kale digniina noqon karayo wax kule yaani qof kastaba uu ku tusaale qaadan karayo odayaal dhaqameedka ku dhow deegaanka ka tigmayno iyagana aad uga amaanayna oo kulay inta badan dalkeena Soomaalida waxa aad uga shaqeeya waxyaabaha dhaqanka wada dhaqameed inta badan ma jiraa waxa dawladda qaarkood in wax laga odayaal dhaqameed ay ku taagan tahay iyagana aad bay ugu hambalyeynaa runtii idinku aad iyo aad mahadsantii waqtiga sidoo daawanaysid kullu waxa magacaaw hadalkiisa inta badan qaatay baladika ku taala soo xiritaanka inta waqtigan ku dheeranay waliba aad iyo aad mahadsantiin asxaabta qaaliga ah kullu waxaan leeyahay inta wanaaga jecel iyo inta xumaanta jecel baan naga dala dhalatana naga jecel idinku wixii fikir aad qabteen wixii ducaa ah wixii tala ah committee noo soo dhiga muuqaalkana si share gareey la wadaaga asxaabtina aad iyo aad mahadsantiin markasta anagu شراب بنزود مركز تاعنا شرف يوناي مركز تا شراب بنزود يا حنشي يبكي أنا وعيران مركز رادون مركز شرف بنزود دوب بس راد شراب بنزود مبارا صوتنا شرف تسكوي حي قالوا إن داونا يندي ولا واحد اللي حضر نروح يقدر نبند جزتين كوفيرو شراب سوقاتا كوفي عبا كتاوض مقال ما شاء الله هذه ما سنتين تاجرها جنا عطونا سلامية كل أصحابنا كتاجر أصحابهم بمن كلام أنت يقصد بيرتاح أصحابنا سكر إياه لابن سودويني وحلا يسودوا هذا صحيح وحنا نسمع تقولكم إن شاء الله وحنا لك وين قال عندهم طا كل ما بيانا أنت بدنا كوي تشيك مسافر أنت بدنا لك بموت قلك وجدني قلك يشدني قلك هذا وجدني إلهي وحنا سهينا كرسيو dadka cusub soo qarana kul bush hadii ma isku barato bush hadii ma isku barato laakiin insha Allah ilaahay inaga ma dhigo ku xumaan ku kala taga insha Allah ma wada joogayno way ognahay maybe laga yaabo dad channelka ku xiran la kiyo kale iyo maanta ku daawan jireen dhinteen oo kale dhinto wax suurtagal marka halkan la wada joogayo dadku waan dhawaan walaal insha Allah bilaahi ilaahayna waxa ku jannada ku kulmaha inaga dhigo adduunkana ku wanaag ku kala tagalaha inaga dhigo insha Allah idinka waxaan ka codsanaya iga codsi awli way codsi waliba qofka comment xun soo qoray walaal ilaahayna ka caroniyo adiga wax diyaari maybe waxa muuqaalka markaan duubino kale inaan duubno dhid karayno waqti gelino walaal qofka xumaan walaal soo qorayo adiguna iska day walaal aakhira ka dambeysay ha aad iska day